komitida fadhiga ay yeelatay ajendaga koowaad waxay ahayd maartii la iska warsanay updates ama maxaa ka cusub cudurka Rift Valley fever intees marahaya agenda labaad on maanta isku imaadnay ayaa waxay tahay in maartii hilibkii muddo 24 beri xirnay on ka xirnay county Wajeer wixii go'aan on ka gaarnay arinta koobaad on raba dadweynaha u sheegay waxa way maartii number 1 guddiga Rift Valley Fever Task Force oo county Wajeer waxaas go'aan ku gaaray in dadweynaha Wajeer hilibka aan u furna dharaarta taariikh 7 bisha aan ku jirno oo July cudurkii wali waa nala jiraa oo wali ma dhamaanin laakiin dadaalo fara badan ayaa laga sameeyay marka waxaan rabnaa maartii in islootaagi aan dib u furno haddii aan aragna cudurka haddana inaad soo noqdana ama maartii aad sii kordhana in haddana aan fadhi kale aan yeeli doono oo haddana maartii aan dib u xiri doono laakiin hadda waxaan go'aan ku gaarnay in taariikh 7 bisha hadda aan ku jirno oo bisha 7aad dharaarta sabdiga la bilaaba xoolihii qalitaankoodii xoolahan la qala waa ka taqaan waa geel waaye erge waaye idaha waaye wixii dhan oo la qala jiri ilaa ilooda laakiin waxaan rabnaa inaan sameeyna taxadar badan dadaal badan inaan sameeyna dadaalkaas oo maartii looga baahan yahay idaaradaha maartii dawliga kuwan dawliga ahaan iyo bulshada ka ganacsata slaughterhouse iyo reer Wajeer dhamaan arrimaha go'aanka ku gaaray waxa ka mid ah dharaarta berri oo jimcada ah in nadaafadii laga shaqeeyo slaughterhouse oo idaaradaha ku shaqaalay ay nadaafadii ay wax ka qabtaan taasna insha Allah waan ka hadalnay arinta labaad waxaan u baahanahay niminka ama maartii haweenka ka shaqeeyaan slaughterhouse in ay leeyihiin certificate caafimaadka oo yihiin maartii dad caafimaadkooda la ogsoon yahay oo la baaray oo yihiin maartii dad fiyo mid labaad waxaan u baahanahay xoolaha markii suuqa laga soo gata oo isla imaadaan in aadana maartii inta ay nool yihiin la fiiri muddo marka ay yartahay 12 saacadood ilaa 18 saacadood xoolihii nolosha lagu arkay maxaa yeelay waxa laga yaabaa mar neefka markii la qala cudurka qaar in la arki waayo laakiin nolosha lagu arkay ka soo qab neef waxa laga sanka dhiig ka wada intaas nool wala arkaano haddii as neefkaas xoolaha gisa oo xanuunsan yahay waa dareemi kartaa ama asqarnay marka nolosha inaan ku aragno way kooxda maartay veterinary iyo public health berri 8 saac ilaa 10 saac waxaan u baahanahay wixii geel iyo wixii eri oo loo talagalay maartay in la qala dharaarta sabdiga la isku keenay maartay suuq maartay u dhaxaya suuq xoolaha midkaan maaha kii koro oo wadada caylooriya ina isku keentaan 8 saac u dambeys ka hor inaad keentaan meeshiida dhakhtarinta ay imaadaan xoolihii nolosha lagu fiiri macaayilada caadada waxay yaqaanaan kawaanleyda siinka ogaan jiray neefka markaad xanuunsan yahay 9 saac bay qalayeen waxaas ma jiraan hadda waxaas waa la jooji neefka intaas in la arko waaye moori ayaa lagu dhufanaa oo tusina neefka askari doonto slaughterhouse inaaskaas dhakhtarka aad soo moorgeeyay noqdo way arinta labaad oon idin sheegayna waxa way maartay
arrintan baaritaanka waxaa sameynaa kooxda maaragtay veterinary iyo public health. slootaga Wajeer waxaa lagu ogsoon yahay oo ka shaqeeya qolada veterinary, laakiin qaybta public health way saacadeynayaan. laakiin slootaga kale oo ku yaala magaalada Wajeer wixii ka baxsan waxaa lagu ogyahay public health. marka meel alla meesha ka jira slaughter house ama slaughter lab, dhaqtariinta ayaa maaragtay baari doonta, neefka nolosha ayaa lagu baaraa, markaas dhintana maaragtay oo la qalana baaritaan hor lagu cilaadana. waxaa kaloo idin sheega maaragtay xoolihii waa in lagu qala ama lagu gowraca meelaha sharciga as ugu targalay, sida slaughter house-ka, slaughter lab-ka, meel kale lagu gowraci kara. hataa qofka hadii ugu targalay aroos waa in slaughter geeya meeshii as ku soo gowraca, dhakhtarka u soo biimeeyo. taas waxay ku tusinay aroos ama maaragtay muraad lagu sameyn kara xaafadaha malaha weli. marka haddii aan fursad in siinay in xoolo lidin baara, dhaqtariinta ay baaraan, waxaan leenahay maaragtay dadka ka faa'iideysana ha geeyna slaughter house ama aroos ha noqdo ama ashaadiin ha noqdo ama muraad kale ha noqdo. waxaa kaloo meesha go'aan aan ku gaarnay dadka kawaanleyda xoolaha ay keenayaan meesha inay iska fiiriyaan xoolaha jiran ama ka imaadaan meelaha hadda cudurka aas u badan yahay. neef laga keenay in la iska ilaaliyo ama neef jiran inaad iska ilaalisiin intii baaritaanka aan la gaarin ka hor. waxaa kaloo rabnaa inaan u sheegna nadaafadda slootaga iyo shaqsigaba inaad ku dadaashiin, overallkii looga tagayo xarataan iyo maaragtay wixii kale oo protective garment ama maaragtay loo yaqaan maaragtay wixii la isku difaaci kara. maxaa waa la idiin sheegay habka xoolaha ay u gudbiyaan bani aadamka ma ka warqabtiin ya waa gacmaha lala galaa tama, marka taxadir loo baahan yahay. waxaa kaloo ugu dambeeyo in idiin sheegi rabaa arrinta oona ku bilaabma karo arrintan inkastoo oon dib u furahayn slaughter house-ka 3 bir noqota 5 bir noqota 8 bir noqota, mar alla markan u aragna xaaladii inay isbedelhayso ina haddana aan dib u fadhiisanayna oon maaragtay haddana xiritaan hor leh aan ku celinayna maaragtay slaughter. intaas wixii ka horey slaughter insha Allah dharaata taariikh 7 sabtiga waa la furaa insha Allah, berrina waa laga shaqeynaa. marka waxaan rabnaa howlaha aan sheegnay inaas garab nooga noqotaan. waxaa kaloo rabaa inaan mahad in celiyo muddadii 24 beriheed slaughter xarneed shaqo fiican nala qabateen. hilibkii maaragtay banaanka lagu qowraco illegalka waa dhamaaday, marka dadweynaha taas mahad ayay ku leeyihiin. marka hadda waxaan rabnaa arrimaha aan sheegnay in maaragtay aan wax iskala qaban. وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.